waftiga ballaaran ee madaxweynayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Puntland markii ay ka ambabaxeen xarunta dhaqanka Puntland ee Qardho waxa ay gaareen degmada Waaciye ee gobolka Karkaar halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamed Siciid Qoslaaye oo qayb ka ah safarka madaxweynayaasha iyo waftigooda goor subax ayay waftigu ka soo baxeen magaalada Qardho oo ay ku sugnaayeen maalmihii la soo dhaafay waxaana ay soo gaareen degmada Waaciye ee ka tirsan gobolka Karkaar halkaasi oo ay isugu soo baxeen kumanaan dadweynaha oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu wehelinayay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas bulshada oo isugu soo baxday meel fagaara ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta madaxweynaha waxaana ay halkaasi ku guddoonsiiyeen hadiyado madaxweynaha aan horay loo guddoonsiin madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goob fagaara kala hadlay bulshadii reer Waaciye ee u soo barnaamijay soo dhaweyntooda waxay ka mid tahay soo dhaweymihii tirada badnaa ee madaxweynaha ku soo dhaweynay Puntland runtiina si sharaf leh oo maqaam sare leh ayaad maanta ugu soo dhaweysay degmadiina Waaciye madaxweyne waa ujeedaa dadka reer Puntland iyo maanta hadda aad Waaciye joogto soo dhaweynta ay soo dhaweynayaan waxay ka turjumaysaa rabitaan Soomaalinimo waxay ka turjumaysaa dowlad jacayl waxay ka turjumaysaa midnimo Soomaaliyeed inay doonayaan iyo wadajir Soomaaliyeed madaxweynaha waxaan u sheegaynaa dadkani waxay rabaan in loo shaqeeyo waxay rabaan in loo adeego waxay rabaan wixii dowladii ay sameyn jirtay serviceski iyo khidamaadkii dowladda ay uga barteen ama dowladda laga filayay in loo dadaalo sidii loogu sameyn lahaa dhan walba waan rajaynaynaa marka haddii dowladnimadeenu ay socoto gaamirto wanaagsanaato horumarto inana aanu si wada jira u taageero dowladda la shaqeyno ku shaqeyno inay taaba qaado horumarto oo ay tallaabsato dabcan iyadana wanaag badan baan ka filan doona insha Allah inuu dib noogu soo celiso Maxamed Siciid Qoslaaye Puntland TV